bal markaana soo qaadano qodob ku aadan operationka ama howlgalka kooxda Barcelona ee suuqa Yurub ku gali doonaan si taxadir ku dheehan. Barcelona waxaa imaada hoggaan cusub, Joan Laporta la wareegay, laakiin waxaa leeyahay kooxda qasnada waa faaruq oo lacag kuma jirto. Sidaa darteed madaxweynaha wuxuu ku dadaali doonaa ciyaartoyda sidii bilaashka lagu heli karo kooxda inuu keeno, wuxuuna qaadi doonaa tallaabooyin taxadir ka muuqdo. Shabakada caanka Marca waxay soo qaateen 5 ciyaartooy oo kooxda Barcelona doonaysa xagaagan gacanta inay ku soo dhigaan. Waxaa ugu horeeya Memphis Depay, sababtoo macna kuma marba hadii loo xaqiijiyo kooxda inuu sii joogay asagana dabcan qorshihiisa kama tanaasulayo oo kooxda waa looga leexday. Wuxuu doonayaa marka Memphis Depay oo xilli ciyaareed kor u rabay inuu qaato u suurtageli waasay qandaraaskiisa ku ogyahay dhamaadka xilli ciyaareedka Olympic Lyon ka soo tagay in kooxda la keeno oo ay si bilaash ku heli karaan. Sidoo kale Koeman wuxuu doonayaa Gini Wijnaldum oo ahaa dooqiisku waa dhanka qadka dhexe laakiin xilli ciyaareedka hore kooxda Barcelona lacag la'aan u dheerisay, hadda si bilaash ku heli karaa. marka Wijnaldum wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka labaad ee Barcelona imaan doono xilli ciyaareedka markuu soo idlaado. Sidoo kale kooxda Barcelona waxay gacanta ku haystaan wiilka lagu magacaabo Eric Garcia oo ay la gaareen heshiiska shakhsiga ah 5 sano contract qalin ku duug. haddii Man City aysan ku dhigi lahayn xilli ciyaareedka kooxda Barcelona uu ciyaar lahaa ma aysan suurtagelin, laakiin Barcelona waxaa leeyahay waa la hubaa oo xagaagan ugu soo fool si bilaash ay ku imaan doonaan. waxaan kaloo soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Sergio Kun Aguero, asigana si bilaash lagu heli karaa, laakiin waxay ku xiran tahay qadiyada imaanshaha garoon Camp Nou ciyaaryahankan go'aanka uu qaadan doono Lionel Messi. haddii Messi kooxda uu sii joogayo waxaa leeyahay Kun Aguero Barcelona dhibaato ma kala kulmi doonto keenistiisa. dhinaca kale waxaa leeyahay waxaa ugu dhib badan keenista ninka lagu magacaabo Haaland, superstarkan weerarka ciyaara Barcelona waxay u baahan tahay mustaqbalka inay ka fikiraan oo ay xagaagan gacanta ku soo dhigaan weeraryahan awood badan oo kooxdan 10 sano caawin karo. kan ugu wanaagsan idealka ahna waa Haaland, laakiin caqabad taagana waxay tahay Borussia Dortmund waxay ku doonayaan 180 milyan oo euro. kan waa 20 jir, haddii Barcelona helaan hubanti ahaan si weyn u caawin kara. marka waxaa leeyahay madaxweyne Laporta 4 ciyaartooy kala sheegna wuu soo qaadan karaa oo intaba wuxuu ku heli karaa bilaash, laakiin keenista Haaland waxay kaga baahan tahay shaqo badan ama xitaa tanaasul inuu sameeyo oo qaar kamid ciyaartooyda kooxda ku ugu muhiimsan sida Dembele iyo Coutinho xidiga kale la iibiyo oo xitaa Antoine Griezmann la gado, lacagahaas markii la isku daro kadibna Haaland la soo qaado. markaan u deeyno tallaabooyinka uu qaadi doono Joan Laporta iyo sida kooxdan uu dhisi doono, laakiin waxaa leeyahay 5 ciyaartooy ayaa lagu soo koobay qorshaha kooxda Barcelona xagaagan ugu soo fool leh ciyaartooyda ay rabaan gacanta inay ku soo dhigaan. idinkan aragtidiina